على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ستا دريمي سولا ليلو حين كورميني أما خطبته رايك هذا شيء ظلمي وحا لا يدعو وقردر qofku ku gardaroodo ilaahay xaqiisa subhanahu wa ta'ala ama xaqa ummadda ama naftiisaba. waxyaabaha ugu dhibaato badan weeye dad badanina ay fudaysadaan. dhinacyadaynu ka eegaynaa waxa weeye bal sida ugu horeyn sharcigu uga digay quraan iyo xadiidba qaybaha uu yeesho dulmigu, cirib xumadiisa iyo xalku wuxuu noqonayo. marka hore sharcigeenu quraan iyo xadiidba aad buu uga digay gardarada. intaa dhinacaynu soo sheegnay mid uun lagu gardaroodo. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka ku xusay ummadihii hore la halaagay waxyaabaha lagu halaagay dal iyo dadba uu ku baaba'ay dulmigaasu ahaa. qolyaha ilaahay uu ka soo warramay uu soo halaagay soo baabi'iyey kasa ilaahay wuxuu yidhi fatilka buyuutuhum khaawiyatan bimaa dalamuu. taa arkaysaan buu ilaahay waa dadkaa dalkoodii waa kaa dumay ee baaba'ay dulmi ay galeen daraaddeed buu ku baaba'ay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka waxyaabaha ummadaha u dhammeeya ee si dhaqsaana loogu baabi'iyuu ka mid yahay gardarrada iyo dulmigu. nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ka warramaya ilaahay xaggiisa xadiid inooga sheegay xadiid alqudsi la idhaahdo fariin buu ilaahay inooga keenay. rabbi waxa uhi yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsi, addoommahaygiiow naftayda waan ka xaaraantinimeeya dulmiga, dhexdiinnana waxaan ka dhigay mid xaraama, ha isdulmiina ha isku gardaroonnina baa ilaahay fariintaa uu ilaahay inoo soo faray nebiga بهذا الحديث القدسي وإن سوغارسي رسولك صلى الله عليه وسلم. isaguna ma dulmiin dadkana dulmigu uga digaya. ilaahay weynayna abuuray iska keen lahaa ayaa wuxuu iska diiday qofku wax aanu samaynin inuu qabto. haddii xataa waxaanad samaynin kuu qabto ila isaga ale oo ku maamulo iska kaalehe haddana dee wixiisii weeye addoonkiisii weeye. haddana ilaahay taasuu dulmi ka soo qaaday subxaanahu wa tacaala. dulmiga ugu weyni waxa weeye ka ilaahay laga galo. ilaahay xaq buu leeyahay, xaqiisu waa in keligii la caabudo, waa in addoommo loo noqdo, waa inaan xaqaa cid kale la siinin. hadduu qofku shirki sameeyo oo ilaahay wax kale uu la caabudo xuquuqdu ilaahay uu leeyahay noocyadeeda kala duwan uu cid siiyo waa ku gaaloobayaa. dulmiga u weyna weeye. sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam aayaddan ku fasiray gaalnimada. aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun. aayaddaasi markay soo degtay oo macnaheedu yahay dadka mu'miniinta iimaankooda gardarro aan ku darin nabadgelyana way leeyihiin, hanuunna way leeyihiin. asxaabtu arrintaa way ka yara yaabeenoo waxay idhahdeen dee qof waloo naga midiba dulmi wuu sameeyaae miyaan iimaankiisii wax noqonayn, miyaan hanuunkii aanu ka xumaanayn. marka nebigu uu fasiray calayhi salaatu wasalaam ila isagaa qur-aanka inoo fasiraya waxa uhi dulmigaasi waa gaalnimada, ina shirka la dulmun cadiim. idan xalku waxa weeye qofku inuu si degdega uga toobad keeno dulmigaana. haddii uu qofku adduunka kaga tago sidaa uu ku dhinto rajo ma leh, lagama yaabo inuu janno galo qof gaalnimo ku dhintay. wanacuudu billaahi min daalik. qofka muslimkiina gaalnimo ma fudaysado. dulmiga labaad waxa weeye ka addoonku dadka uu ka galo oo bani aadamka adduunka ay ku wada nool yihiin gaal iyo islaam mid kastaba ha ahaadee inuu ku xadgudbo oo xaqdarro uu ku sameeyo kaasina waa dulmun bayna alcibaad. waxyaabuu ka dulmiyi kara qofku waxaa ka mida dadka maalkooda. maalka caamka ah buu wax ka cunayaa, ama maalkii khaaska ahaa ee cid gaari lahayd, ama dadkii ducafada ahaa sida agoontii,
ama xoolo kaloo sharcigu xaaraantinimeeyey sida ribadii ama dadkii buu boobayaa si kastaba ha ahaatee xaq aanu lahayn buu cid ka qaatay bani aadamka ka mid a oo xoolahoodiiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka ka digo waxau ihi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil qur-aankaa ilahay inoogu digaya dhexdiisao xoolaha aan idin siiyeen idinku haysataan xaqdarraha ku kala cunina baa ilahay uhi waa dariiqo aan sharci ahayn magacii la doonadaha loo bixiye kol haddaanu ilaahay kuu xalaalaynin oo cid kale ay leedahay inaad qaadato waa dulmi wax aad u khatar badanna wey waxaa ka mid ah alictidaa'u calaa araadi lmuslimiin dulmiga qaybihiisa kala duwan kuwa u daran waxaa ka mid a dhulka inuu qofku ku xadgudbo wuu ka digayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku uhi xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa man dalama qiida shibri min alardi duwiqahu min 7 ardiin qofku hadduu taa ka qadarkee dhulka xaqdarro ku qaato maalinta qiyaamaha waxaa loo surayaa qoorta iyadoo 7 dhul laga soo jaray qadarkuu qaatay ayaa 7 dhul laga soo goynayaa qoortaa loo gelinayaa marka calaamo laga muujinayo weeyo khalqigu markay halkaa isugu wada yimaadaan cid waliba waxay garanaysaa ka halkaa mareegta dheer ku sita qoorta inuu yahay kii dhulboobka ahaa waxaa kaloo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo uu ka digay dulmiga lagu samaynayo dhulka ee si hoosa loo xadayo markaasaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa lacana allaahu man qayara manaara alard allaha nacdalo calaamadaha dhulka la kala dhigtay qofka wax ka bedela waa dadkii baroodhada durkinayay muska durkinayay mararka qaarkoodna xabaashii jaarka ku taalay xabaasha laftigeedaba rarayay iyo calaamadaheeda nabigu nacdal buu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam marka siyaabo badan baa dhulka loo xadaa oo taa uu nebigu sheegay waa ka mid uu qofkii calaamadii bedelayo waxaa ka mid ah dhulka danta guuda haddii maalan dhulka marka la qorshaynayo la qaado qayb la yidhaahdo halkaa waxaa laga dhisayaa masaajidada halkaa waxaa laga dhisayaa iskuullada halkaasi waa wadooyinkii halkaasi waa dhakhtaradii magac baa la siiyaa waa hanti ummadeed in dadka qaarkood iska isticmaalaan ama maamul ha ahaadaan ama tijaar iibsanaysa ha ahaadaane waa xaaraan weeye leanna wixii loogu talagalay maaha waxani wax qof qaadan kara maaha waxaa ka mid a in sharci lagu qaato oo qofku uu iska ogyahay waxaan in cid kale leedahay ama danguud ha ahaada ama dangaar ha ahaadee laakiin wuxuu leeyahay maxkamad baa ii xukuntay sidaa daraaddeed sharcigiiba ay siiyey ama dowladdii hoose ay siisay waanu ogyahay ila qofku naftiisa been uma sheegeen sharcigan uu sitaa inuu xaaraan yahay oo cid kale waxaan ay leedahay marka taasoo kale waxay noqonaysaa iyaduna waa qaybaha lagu qaato dhulka ee xaqdarrada ah qofkii oo mas-uula haddii uu hantidii ummadda ku boobo xilkii uu lahaa ama qori ama qalin iyaduna waa noqonaysa dulmigii waa qaybaha lagu qaato casrigan aynu joogno dhulka khatartaasaanu leeyahay waxaa ka mid a dadka jidhkooda oo la garaaco ama xabsi la geliyo si gardarro ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam dulmiga noocaasa uu ka digay xadiidkii saxiixa ahaa muslim ku sugnaa min xadiidi abi hurayrata waxa uu yidhi 2 qolo oo ka mida dadka weli maan arag oo maan gaadhin laakiin way iman doonaan qolo ka midii waxa weeyaan buu yidhi dadka garaacaya qowmun macahum siyaadun kaadanaabi lbaqar waxay sitaan ula dhaadheer oo sida looda dabadeedoo kale ah dadkay garaacayaan yadribuuna abshaara annaas dadka jidhkooda ayay garaacayaan kuwaasi jannada ma galaan udgoonkeedana ma helaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka qofkii ama qof xoog sheeganaya ahaada ama mas-uul ha ahaadee dadka jidhkooda in ciqaab lagu soo gaadhsiiyo gardarro iyadana waa ka digay sharcigeennu sidoo kale xabsi aanu qofku mutaysanin in la geliyo iyadana waa laga digo waa dulmiga qaybihiisu ka mid yahay dulmiga waxaa ka mid a dadka sharaftooda oo la wasakheeyo ama lagu xadgudbo ama madax ha ahaado qofkaasi ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado ama raciyada ha ahaado qofku gafaanu gelin oo lagu been abuurayo dusha laga saarayo iyaduna waa dulmi waayo dhibaatada la soo gaarsiiyay qofka maalkiisa iyo jidhkiisa waxa ka dhibaato badan sharaftiisa iyo cirdigiisa la soo gaarsiiyo taasoo casriganna dad badan ay ku degdegaan iyagoo ka faa'iideysanaya qalabkan wax lagu baahiyay sida dhaqsaha dadka warka u gaarsiiya
إلهي بأوحي سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا قفك انتو قفك لددك دشا وقتورا دنبي وين بو حنبارتي ذا إلهي وليا بين أبورا دوين إذن مركا عردك إيا قفك شرفتيسة إن وحلوري معنا يدنا وظلم آدو وين خطر بضن والنبي قلنا كدقى صلى الله عليه وسلم maalintii ummadda uu sagootiyay xajjatul wadaa waxa kamida dulmiga madlul ghani aw man'u huquuqin naas fi duyun qofku marka deyn lagu yeesho ee uu awoodi karayo deynta inuu iska bixiyo inuu dadka warwareejiyo qofkii baa deyn baa lagu leeyahay ama shaqaalihiisa kule ama ganacsato kala kule ama ummadda kule qofkaasi deynta isagoo bixin karo dib dhigaya warwareejinaya رسولك صلى الله عليه وسلم وكهذا وحول مضل الغني ظلم قفك يسكب حين كرا قشقي لقولها ووقت جيس الماضي إنه دتك وروريتيا وقدر أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ظلم المرأة حقها من صداق ونفقة وكسوة وغيرها رجوين يوحوك شيكتان دمرك يحاول إذا ما تدعي مسؤولك كيهين وحقوق ذي أي لهايين أي سوايان هذا يتم مصروفك يا مرينك يا جوري حتى أضو فري وحي يدي عرورته أي حق لها يعني نقفك سوايو أو هذا بلاني حوك الله يقاضه أرنت السنة وحيالها أو خطر بدن ويه إلى هنا أمر بو بحيي دمر كين حق هذا الله سيور رجوا أنا يحوك شيء قالوا أنا يظلمين وآتوا النساء صدقاتهن النحلة مهر كود السيابة إلى هو الجاهلية ذا كدول ميشري هذه يشار shayga dulmiga la yiraahdo aad buu dhib badan yahay dadka qaar koodna waxay ku kadsoomaan u kaadinta loo kaadiyay wallahu yumhilu wala yuhmil ilaahay adoonka uu kaadiya laakiin ma ilaawo subhanahu wa ta'ala inna allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu rasuulku waxa sallallahu alayhi wa sallam qofka dulmiga sameeynaya ilaahay waa u kaadiya marka uu saqabto ما دقاقة أرحد كتبي هتو قفي هاي هتي أمديهم ب نك أبو العتاهية لورنشره شاعر كوين أما جوايا وين مرتضى لهذا هارون الرشيد حكم كيس آذو بلادنا بدحويني وقت قاسول هذا يا وحولي أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم waxa dulmiga la yiraahdaa waa gardarro qofkuna waa xumaan falow inta uu dulmiga gardarro sameeyo qofka wax dulmiya waxaad garan doontaa aroorta markaynu ilaahay agtiisa ku kulanno ka maalinta la canaananayo ceebaysan waad garan doontaa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramayaa caaqibada iyo cirib xumada uu leeyahay dulmigu markaasaa wuxuu yiri ma min dhanbin ahran yu'ajjil Allah lahu tabaaraka wa ta'ala al-'uqubati li sahibihi fi dunya ma'a ma yadakhiru lahu fi al-akhirati min al-baghi wa qati'ati ar-rahim ala ma'na hadith qofku dambiga uu galo waxa hadiya jeer uqubadiisu ay soo degdegtaa laba dunuubta dambiyada kamida waa gardarrada oo dulmiga iyo qaraabo goysnimada qofku xaqi qaraabadu ay lahaayeen iyo xigtadu aanu siinin iyagana nooc dulmi un bay noqonaysaa labada qaybood nafsigooda soo dhaxsada buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku xusaya sallallahu alayhi wasallam marka uu ka digayo gardarada qofka lagu gardarooday ducadiisa iyo baryadii habaarkiisa si dhaxsaa in loo aqbalo oo aanay raagaynin jawaabtu ayaa uu nabigu xusay isagoo inooga digay sallallahu alayhi wasallam ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها الأبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين صدح قف بريدودii habaarkooda baa la aqbalaa imaamka caadilka qofka musaafirka ay qofka lagu gardarooday baryadiisa caalamka kora loo kor yeelaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo habaarkiisa ilaahayna wuu jawaabayaa wuxuu leeyahay
weynaantaydan ku dhaartay waqti dabadiiba ha ahaatee waan kuu hiilin doonaa xataa waxay leeyihiin culimadu xadiidku si caam u hadlaya xataa gaalka haddii la dulmiyo laftiisii loo aqbalaya habaarkiisa ayaa laga fahmayaa bay leeyihin waxaa jira tijaabada arrintaas waa wax badan baa laga arkay oo dhacay waqtigii salafkii saalixa ahaa iyo waqtiyo ka dambeeyay qisas badan baa jiro cadaynaya ama qisooyin badan qofku haddii uu wax dulmiyo in jawaab dhaqsaahay ay u timaado hadaad akhrido qur-aanka kariimkaana qisooyinka waxyaabaha inoo cadaynaya waxaa ka mid ah dadku dulmigaa ay samayn jireen siduu ilaahay uga jawaabi jiray subxaana wa tacaala ummado dhadan u baabi'in jiray waxaad xusuusan tahay qisatu fircawn iyo halka arrinkiisa uu ku dambeeyey siduu ilaahay u dhaxal wareejiyey reer banu israa'iil u dhaxleen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim had iyo jeer kumay degdegi jirin cidda dulmida ama ku xadgudubta inay habaaraan laakiin xaaladaha qaarkood oo ay dulmigaa u adkaysan waayaan haddii ay dhacdo inay habaaraan si degdegaa loo arki jiray waxaa ka mid ahaa maalan saciid ibnu zayd oo 10kii jannada lagu bushaareeyay ka mid ah ruux dumara maalin maalmaha ka mid ah soo ashkataysay waxay leedahay dhul buu iga qaaday mas-uuliyiintii cadaaladda badnaa ee faqriga iska xamili jiray ee xoolaha ummadda iska